wargoobile geesiyo gartiya xaajada guro gadaashii lama hadlo gambar dheer loo dhigyo geedaha loo waabayo gugiisaan ugu yarmooy guntiisu waxay lahayd geedaha loo waabayo gambar dheer loo dhigyo wargoobile saargadood hiddaha aan guurino goobilaani waa jeclahay goobile waa saargadood wargoobilow soomaal waa sawrax geel sawaaxili baasan duran adoon baa sararra weyn surqaasay deeriska leh nin sixir maray suurad ma leh saqaafow naar ma sugo salan macaariifa waa salliga waa gacanta midig wargoobilow ayaa laga baqaa goobu waa baashaal duqeed barqay xool ugu baxaan wargoobile goobilo lacadow caligeediyo la cayaartaada aan jeclahay goobile calanka soomaaliyeed iyo carrada soomaaliyeed war maxaa loo cadacada calankan waa loo soo dhintay waana loo soo rafaaday markii calanka la qaadanayay koogu diluuliya ayaa nin odaya uu gabyo wuxuu yidhi inkastoo harraad loo maray iyo huumi diriireed gobonnimo waxaan haybinaba waa la soo helaya waxse hadalku joogaad sidaad ku hanan laydeen war soomaalida gobonnimada waa u sahlanta laakiin waxaa la rabaa in la hanto oo aan la iska burburinin oo qabyaaladda la iska daayo oo la xagsada ayaa la rabaa dawladnimada saas ayay ku dhalan kartaa waxaan leeyahay dawladnimo raadkeedii waa la hayaa ha la xagsado yaanan la burburinin qabyaaladda iyo waxyaalaha dhibaatada soomaalida u keena ha layska ilaaliya ilaahay sanadkan sanadkiisa kalena nabadgelyo allaha nagu gaarsiiyo 13 qof ayaa gacantooda iyo qori ayagoon haysanin dalka xoreeyay alxamdulillaah dalkiina inaad waxaa la rabaa horumarisaan inaad cadowga ka ceshataan inaad dalkiina isku duubnaataan qabyaaladda inaad ka dheeraataan horumarka inaad gacmaha isu qabsataan waa maalin weyn oo taariikhi ah oo muxuu ahaa Soomaaliya xognimada qaadatay kooda luuliya laba midowday adduunyada waa taariikh wixii tagay way xustaa wixii joogana way qortaa wixii dhimanna way sugtaa waayaha adduunka taariikhda kaawan waxa loo wakiishaa ninka waaya aragga Soomaalida hadda joogto kulli waa waaya arag ilaahay maadi waxa meesha ugu fiican inaan maanta taagannahay oo xognimada haysano oo dad isku duuban oo isjecelaanahay marka kaliya waxa fiican inaan qabyaaladii qabiilka aan ka kaftoonno oo qarannimo aadno qabiil wax ma tahay qaran ayaa wax lagu noqdaa dhulkaygaan ku ahay nabad kuna helay dhamays nolol mana jiro wax iga dhiman oo aan u dhoofaa maanta waa maalin weyn waa maalin farxadeed hambalyo waxa la yiri maanta waxa weeye waa maalintaadi waa maalinteedi waa maalintiini waa maalintoodii waa maalin wacan taas waa meesha kale maadaama ay maalintii dhallinyarada tahay dhaqaajiya dhiigga dhallinyaraday dhulwaaga dhulkeenna ka soo dhiciyay dhaqaajiya dhiigga dhallinyaraday dhulwaaga dhulkeenna ka soo dhiciyay taasna waa meesha kale maxay tahay maanta maxaan isugu nimid maxaa loo shirayaa maxaa Soomaaliya oo dhan ay u dabaaldegaysaa maanta waa laba munaasabadood oo isu yimid waa kowda luulyo maalintii gumaysaha Talyaaniga ay ka qaateen xornimada gobollada Koonfureed iyo isu tagi ama isku biiridii gobollada Waqooyi iyo gobollada Koonfureed maalintii ay midoobeen waxay isugu jiraan labada munaasabadood
oo ay isugu yimaadeen labadii gobol ee xorowday waxaa dhacay 1964 dowladda Soomaaliya oo 4 jir ah oo 4 sano jirta ayuu dagaal qabsaday dagaaladaas waxay ka socdeen doolow iyo wajaale xoogooda dagaal 1964 dagaalka oo socda waxaa soo galay woodkii doorashadii madaxweynihii Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaarke baa waxaa la yiri dagaalna waad ku jirtaa woodkina waa soo galay iyo doorashii madaxweyne ka jawaab wuxuu yiri gacan xabadaan ku ridaynaa gacanna woodkaan ku ridaynaa wadanimo Soomaha waxa inta dheer horin meel degan oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo calanka u suran yahay baa weerar xoog badan soo qaaday waa la riixay markii la riixay baa wiil la yaraa xalane buu arkay calanka oo babanhay buu soo laabtay gaaladii xabad ku sayray calanka asoo dejinahay cawaale asoo dejinahay bay xabad haleesh waxa la dhigi jiray xalane waxa loogu magac daray xeradii ciidamada lagu tababari jiray oo bootika la dhigi jiray baa waxa loo bixiyay xerada xalane qofku markuu xorriyad garanayo waa markuu qaran haysto xorriyad waa dawladnimo xorriyad waa qarannimo xorriyad waa jiritaan ummadeed ما شاء الله قذا channel وان سلامة يا تي في أد أقيم بدن واي أنيقو مقعي إبراهيم أد بان أغفر حسن هاي دمان أمت سومالي دوحان لي هاي همبالي كود لولي أيان لي هاي همبالي ما شاء الله ما أنت مناسبة دي أد أي معنا وحنا نوقع دماتي سي وناكسن سي قروح بدن نوقع دماتي ما شاء الله أد بان أغفر حسن هاي قذو channel أد أيان معنا أغو مهد علينا يا مادام برشد أي سفي عن أغو شقيسو ما شاء الله كان قيب قادتي معناها دبالدقة iyo soo dhaweynta waxyaalahan maanta nabadan ay sano waxa curi waa dhalinyaro ma garatay dhalinyaro SYL 13 dhalinyaro ay ahaayeen dhalinyaro aqoon badan ma ahayn laakiin dhalinyaro wadaniyaal ay ahaayeen marka ma sha Allah ummad Soomaaliyeed waxa leeyahay dhamaantood hambali magacaygu waa Yusuf markooda waxaan celinayaa saxaafadda Gada channel marka labaad waxaan dhammaan u hambaleynayaa ummad Soomaaliyeed inta sheegata magaca Soomaaliyeed dhammaan waxa leeyahay hambali maanta waxa meeshan isugu imaanay in aan u dabaaldegno kowda luuliye maalintii aan xorriyadda qaadanay alxamdulillah oo jeedin waxaan qofa dhamaanteen waa wada faraxsanahay waxaan ku wada faraxsanahay maalintii aan qaadanay xorriyadda ugu horeen walaal ku soo dhaw Gada channel magacaaga waan dhaw walaal magacayga waa Amni Saara Xasan Cabdi waatay maanta waxaad u soo dabaaldegtay maalintii xorriyadda kowda luuliye ka waran dareenkaaga والله ما شاء الله أد بقى فرحسنا هاي ما أنتوا حقيقة فرحت جوني وايو ومالك عن حرني ماذا قاطي أو جوميستها عن كحروي أد بقى فرحسنا هاي أدين كانوا إنك جم هاد علنا يا شقة في عن أد بالشدة وهيسان وطي ما أنت مناسبة حرني ماذا كود لوليا هذا واقع قادنا وحنا واقع قادنا يا علن كيجا أيان وحنا تريته جويا وطي نصيدا وحنا كبل الله ونسا سيدة علن يهوقف يلا قلا به يرير قرون بهاي صادري قيد كودي باتهاي قلعة بلعسن باتهاي قصر آمناتهاي جريد قالياتهاي سمداد لقابتهاي انت عداني يمدو عالم كان كنول عد والبا علامات بيلايهين اي عالم وقاره أنا عين تيسو مدب واعركو كلاي عد إلا وضا تامجرتو أدونك إيد الكيسة عسيو أيام بو حرد ديري هاي ribada adduunkan ooga ciyaartanaay maanta xuskiisi ayaa nooc imaamadaane calankeenu ha sareeyo waa lama taabtaan gabayad qurux badan weeye kulay abwaanad qarsoon badaheed guul waxaan ayaan ku rajeenaya walaal magacaaga إقراء علي والد حلية إقراء علي أورك دلنا كسعته دقمة بلحاو وتكسر وجه channel نوع ورندرين كأدن كود لوليا مناسبة ما أنت أد يقرب بدن شاي كلي وين وداركنا بلادين كأدرين كا ما شاء الله أد بقوم بلينا يا دقمة بلحاو ما نسي ود بلدكتي دتك هو يوينك دلنا يردا يا دقمتك كل ما شاء الله سفي عالو دبلدكي دتك شعبك أسكاد محايا العيد ما ضلك حوق عادي هذا كسر دوينا ما شاء الله ولا كسر مر لبعض ولا الوان دوهاي وإسلامين دي ومر لبعض صلاة وتأكيد طبعا هذا صلاة وتحفل يا إنها أنا يجيب الشدة أنه يسد واحد مركان كاتجي بك بعد يوصل عضي إن مر لبعض كسر لابته وحن وقلت لك علي هاسي رجابان وأنا حالة أن ألفي ما أن هاس أو قفر وألفي أنا ألفت سوسي دابو وحوي أدونكو كوما دريالة
dantaadana ma eege soomaalay dadaalo dantaada gaaro darahaada dhiso qabiilka diido qayrka u doorlo